marka hurdada ka soo kacay haddii aad isku arkaysa indhahaaga inay aad u qaalan yihiin oo aadan kala furi karin oo xitaa indhahaaga isku dhigayaan qaleel awgiisa, waxyaabaha sababi karo iyo xalka aad ka gaari lahayd haddii xaaladaas isku aragtay ayuu maanta muuqaalkeena ku saabsan yahay. daawasho wacan. mar kale waa aniga titruxyaa ugu barateen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga. hurdada markaa kasoo kacay haddii aad isku arkaysa indhaha aad inay kuu qalalan yihiin oo axadaan indhaha kala furi karin oo iftiinka uu ku dhibaayo, ama marka qaar dadka qaar waxaa lagu arkaa xataa indhahoodna ilmeynayaan qaleel awgeed. oo qaleelka waxaa loo jeeda maaha inay isha ilin lahayn, balse inay ishi aadan kala furi karin oo aad ka dareemaysa inay ku hurayaan ee ku cuncunayaan, oo ay inta badan waxyaabaha sababa ay kow ka tahay isha oo waxyar kala furan. dadka qaar indhahooda kala furan yihiin, laga yaabo dadka kugu hareereysan oo kale guriga inay kuu sheegaan indhahaaga way furan yihiin, balse inaadan ogeyna laga yaabaa oo ah qof oo single tahay ama qof kaligiis guri degan oo dad ku hareereysnayn oo indhaha saas u kala furan yihiin. sababtaasna waa sababta koowaad oo ugu daran oo dadka u sababi karto inay indhahooda qaleel noqdaan. marka qaar waxaa laga yaabaa in aadan badareemin indhahaaga inay furan yihiin, xataa dadka kugu hareereysan ay kuu sheegin indhahaaga way furan yihiin, oo wax yariisa oo isha ay ka furnaato oo faliiq yar ah oo qofka xataa haddii uu fiirinayo uu ka dareemi karin. midaas xitaa oo ayadana qayb ka noqonaysa indhahaaga inay furan yihiin oo dabeesha markay gasho sidaas qaleel ugu dhigi karto. xaaladaas markii aad isku aragtid, waxyaabaha laga baahan yahay oo ah xalka waxay tahay midda koowaad in qofka markaa lagula taliyo inuu boomaato isha lagu qoynayo laga hortagayo qaleelkaas inuu habeenkii markuu u seexanayo uu isticmaalo. marka intuu isticmaalin ka horne waxaa loogu baahan yahay in uu mataqaanaa hurdada u diyaar garoobo, sababtoo haddii uu qofka uu ku dhiijiyo wax ma akhri karo, saacado wax ma akhri kara. markuu waxiisa iska dhameysto saacado sariirtiisa kale wixii isaga aqarsado oo ama taleefon ama isticmaalaa wax walba oo aragti quseeya markuu dhameysto tartiib sariirtiisa u fuulo oo boomaatadiisa indhaha uu ku dhiijiyo. marka uu indhaha uu ku dhiijiyo oo subax hurdo soo kaca, xitaa dadka qaar kale waxaa laga yaabaa inay ku arkaan indhahooda in indhaha isku dhegayaan, inuu qaleelka ay ka baaba'do, laakiin dhegdhegaas marka qaar saacadaha koowaad oo kale araggiis inuu shuuca uu ka dareemo. arrintaas xalka ugu koowaad ayaa noqonaysaa oo qofka haddii uu xaaladan lagu arko. arrinta labaad waxay tahay inuu isticmaalo maaska isha lagu xirayo. waxay ka saacidaysaa marka ishas markuu daboolo in waxyaabaha dabeesha xoog leh ku dhicilaysay in ay meesha ka celiso. dadka qaar inkastoo qofka xitaa haddii uu maaska xiran yahay, maadaama isha weli ay u furan tahay laftirkeeda xitaa hawo inay weli geli karto dadka qaar xitaa lagu arkaa, laakiin waxay iska noqotaa xalka labaad oo dad badan ka caawin karto. adiga ma tahay qof marka hurdada kasoo kaco indhihiis aad u qaalan yihiin ama saacada ugu horeeyo shooca ka dareema aragga? haddii aad tahay dadkaas, qaybta community nagula wadaag. labadaas xal aan soo sheegane midkee hore u tijaabisa mise midkoodba maadan tijaabin? haddii uu muuqaalka faa'iido kuu lahaa, fadlan like-ta ka hilmaama muuqaalka. intaas ayaa muuqaalkan kusoo gabaynaa. meel walbo adduunka joogteen waxaa idin rajaa caafimaad iyo indho fayow.